waxaana wanaagsan idilhaantin badawadayaal ku soo dhawaada Toos TV iyo xogii ugu dambeeyay xaaladda dalka Itoobiya qodobada warka aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah saraakiil ka tirsan ciidamada liyu booliska iyo maleeshiyaadka faano oo ka baxsaday furimaha dagaalka waqooyiga dalka Itoobiya ayaa lagu qabtay magaalada Bahardar ee caasimadda deegaanka Amxarada TPLF ayaa sheegtay in dagaal xoogan ay ka wado waqooyiga gobolka Gondar ayna magaalada Gondar u jirto wax ka yar 90 kiiloomitir militariga iyo federal booliska dalka Itoobiya ayaa beeniyay warbixinta ka soo baxday kooxda baadhista ee hay'adaha qaramada midoobay kuwaas oo lagu eedeeyay inay tacadiyo iyo dambiyo dagaal ka geysteen deegaanka Tigreega dowladda federaalka Itoobiya ayaa maanta shaacisay in shatigii ganacsi ay kala noqotay shirkadii BOLGCL ee shidaal qodista ka waday deegaanka Jeexdin ee degmada Dhowaweyn iyo Elaleh ee dowlad deegaanka Soomaalida waa maalinimo Arbacada taariikhdu waa 21 bisha 9 sanada 2020 halkani waa Toos TV ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan aynu ku bilownaa dowladda federaalka Itoobiya ayaa si rasmi ah oo gala laabatay fasixii ama liisankii ganacsi ee shirkadda BOLGCL oo shidaal qodis ka waday deegaanka Soomaalida sida ay xaqiijisay wasaaradda macdanta iyo tamarta dowladda federaalka Itoobiya shirkadda oo 2 bilood ka hor lagu daray liiska ku dhawaad 1,000 shirkadood oo lagala noqday liiska ama fasaxa ama ruqsada dalka ay kaga shaqeynayso ayaa waxa markii dambe la siiyay liisankan iyadoo shuruudo ay ku xidhnaayeen loo qabtay in muddo 100 maalmood ah ay ku fuliso dhammaanba waxyaabihii ay ku fashilintay muddadii ay ka waday shidaal qodista gudaha dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan aaga Jeexdin ee degmada Dhowaweyn iyo sidoo kale Elaleh wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta dalka Itoobiya injineer Takala Uma ayaa sheegay in wasaaraddiisu ay dadaal badan u samaysay shirkadda BOLGCL sidii ay u wadan lahayd shaqadeeda balse shirkadaasi oo laga leeyahay dalka Shiinaha ay awoodi weyday dhinaca kalena ay ka soo bixi weyday baaxadii looga baahnaa ee wax soo saar iyo sidoo kale horumarinta iyo suuqgeynta dhinaca farsamada iyo iibka shidaalka dalka Itoobiya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay September 21 ayay wasaaraddu sheegtay inaanay shirkadda BOLGCL ka shaqeyn doonin dalka oo si rasmi ah loogala noqday ruqsadda dhinaca kalena haamaheeda iyo qalabkeeda ay ka qaadato gudaha dalka Itoobiya shirkaddan oo ku sugnayd muddo dhowr sano ah gudaha dalka Itoobiya gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ka geysatay tacadiyo xasuuqyo iyo sidoo kale in shacabka deegaanadaasi ay ku layso sunta ay ku soo saaraysay shidaalka degmada Dhowaweyn Shilaabo Higlooley iyo degmada Elaleh ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa la daaladhacayay sun shirkadaasi ay ku faafisay deegaanadaasi dhinaca kalena xilliyadii ay shidaal qodista waday kiimikada ee ka soo baxday ay ku dhamaadeen kumanaan shacab halka kumanaan kalena ay hadda la ildaran yihiin xanuunyo ay ka mid yihiin kansar iyo xanuuno aan ilaa hadda la aqoonin warbaahinta The Guardian ee ka soo baxday dalka Ingiriiska ayaa horay u daabacday in shirkadaha shidaalka ka qodahaya dowlad deegaanka Soomaalida ay dhibaatooyin ba'an u geysteen shacabka deegaankaasi inkastoo dowladda federaalka Itoobiya arrintaasi ay inkirtay balse shacabka dowlad deegaanka ayaan ilaa hadda wax xuquuq ah ku haysan shirkadaasi sidoo kalena xukuumadda dowlad deegaanka ayaa ku fashilantay in ay saamiga Soomaalidu shidaalka ay ku leedahay ay banaanka keento iyadoo sharciga shidaalka Itoobiya uu yahay mid uu hareeyay madmadow musuqmaasuq iyo wax isdabamarin dhinaca kalena dowladda federaalka Itoobiya aysan marnaba shacabka Soomaaliyeed u ogolayn in ay noolaadaan ama shidaalkooda ay dheefsadaan isku soo duubo shirkaddan laga saaray dalka Itoobiya iyo dowlad deegaanka Soomaalida ee laga joojiyay shidaal qodista ee BOLGCL lagana leeyahay dalka Shiinaha ayaa la filayaa inay bedesho shirkad laga leeyahay dalka Turkiga taas oo shidaal baadhis iyo qodisba si weyn uga bilaabi doonto guud ahaan dowlad deegaanka Soomaalida shacabka dowlad deegaanka ayaana si weyn u soo dhaweeyay in fasaxa ama ruqsadda ganacsi lagala noqdo shirkadii BOLGCL ee laga lahaa dalka Shiinaha taas oo dhibaato mooyaane aan wax nacfi ah bulshada dowlad deegaanka Soomaalida u soo kordhinin bataatanba muddadii ay ka shaqeynaysay daawadayaal halka nagala socotaan waa Toos TV markaynu u gudubno waqooyiga dalka Itoobiya dagaal khadhaadh ayaa ka socda waqooyiga gobolka Gondar ee dowlad deegaanka Amxarada TPLF ayaa shalay sheegtay inay bataatanba la wareegtay gacan ku haynta magaalada Adiarkay deegaanka Jawabara Serena iyo sidoo kale deegaanka Taashane ee Zimin Gondar Zone waxayna sheegeen inay ku burburiyeen ciidamadii militariga dalka Itoobiya gaasi ku sugnaa iyagoo dhinaca kalena ku soo bandhigay kumanaan maxaabiis oo ka tirsan militariga dalka Itoobiya ayna sheegeen in dagaal maalmihii u dambeeyay socday ay ku qabteen aagaasi haddaba dagaalkan saaka ayaa la sheegayaa in TPLF dhinaceeda ay horumar ballaaran ka samaysay dhinaca kalena magaalada Gondar ay u jirto wax ka yar 90 kiiloomitir inkastoo iska caabin xoogan ay kala kulmayso ciidamada militariga dalka Itoobiya liyu booliska iyo maleeshiyaadka faano iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo miiga iyo helikabtarka haddana TPLF saaka waxay sheegatay in horumar ballaaran aagaasi ay ka samaysay dhinaca
dowladdeegaanka Canfartana waxaa la sheegayaa in dagaalo goosgoos ay saaka aagaasi ka socdaan dhinaca kalena ciidamada militariga dalka Eritrea ay qayb weyn oo lixaad la ka qaadanayaan dagaalka aagaasi ka socda 5 furimood oo shalay ciidamada Eritrea ay kaga soo qaadeen dagaal dhinaca deegaanka Tigreega ayaa bataatan basaaka istaagay balse dhinaca Baadhame ayaa la sheegayaa iyaguna in ay ka furmeen furimo cusub oo dagaal saaka dhinaca deegaanka Waqoohumara dagaalo goosgoos iyo duqeymo ayaa ka dhacay subaxnimadii hore saaka balse ilaa hadda ma jiro wax war oo ka soo baxay dhinaca TPLF iyo dowladda federaalka Itoobiya TPLF ayaa maanta soo bandhigtay kumanaan maxaabiis oo ka tirsan ciidamada militariga dalka Itoobiya kuwaas oo ay sheegeen inay ku qabteen dagaalkii maalmihii u dambeeyay ka socday waqooyiga gobolka Gondar gaar ahaan inta u dhaxaysa degmada Adi Arkay iyo sidoo kale degmada Daashen ama Dabarak ciidamadan TPLF saaka ay soo bandhigeen ayay ku sheegeen in ay u badan yihiin qoomiyadda Oromada kuwaas oo markii ay iska hor imaadeen furimaha dagaalka iyagu isu soo dhiibay ciidamada Tigreega dowladda federaalka Itoobiya ilaa hadda wax war kama aysan soo saarin sheegashada TPLF ee ku aadan inay isu soo dhiibeen kumanaan ka tirsan militariga dalka Itoobiya gaar ahaan ciidamada ka soo jeeda qoomiyadda Amxaarada oo ay ku qabteen furimaha hore ee dagaalka dhinaca magaalada Bahardar ee caasimadda deegaanka Amxaaradana saaka waxaa lagu qabtay Samene Kasai oo ahaa taliyihii guud ee ciidamada maleeshiyaadka Fano dhinaca kalena ka tirsanaa ciidamada Liyu Booliska ee dowladda deegaanka Amxaarada soona maray darajada generaalnimo Samene Kasai ayaa la sheegay inuu ka soo baxsaday furimaha hore ee dagaalka kadib markii uu adkeysan waayay dhamaacda rasaasta ee TPLF ay la hortaagan tahay ciidamada militariga dalka Itoobiya maleeshiyaadka Fano iyo ciidamada Liyu Booliska dowladda deegaanka Amxaarada waxaa la sheegayaa in Samene Kasai uu la baxsaday malaayiin lacag oo ay lahaayeen maleeshiyaadka Fano iyo ciidamada militariga dalka Itoobiya taliyaha lagu bedelay Samene Kasai oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ka soo qabteen qabalaha saddexaad ama xaafadda saddexaad ee magaalada Bahardar ee caasimadda deegaanka Amxaarada kaniisad ku taala isagoo halkaasi ku gabanaya kadib markii ay soo sheegeen shacabka deegaanka ee aagaasi ku dhaqan Samene Kasai oo ka baxsaday furimaha hore ee dagaalka ayaa ahaa nin si weyn ay ugu xisaabtami jirtay qoomiyadda Amxaarada maleeshiyaadka Fano iyo sidoo kale ciidamada Liyu Booliska dowladda deegaankaasi balse waxaa la sheegayaa in kadib markuu madmadow soo kala dhexgalay ciidamada Liyu Booliska iyo maleeshiyaadka Amxaarada dhinaca kalena uu sheegay in Fano si walba ay dadaal u samayso xabsiga loo wada taxaabi doono oo iskaga baxsaday aagaasi sheegashada dowladda marka laga yimaado ma jiro ila madax bannaan oo ku aadan sababta uu baxsaday Kasai iyo halka laga qabtay warbixino hordhaca ayaana sheegaya in maxkamad ku taala magaalada Bahardar galabta laga bilaamiyay halkaasna laga bilaabi doono kiiskiisa qoomiyadda Amxaarada ayaa si weyn uga cadhaysan ciidamada Liyu Booliska maleeshiyaadka Amxaarada iyo sidoo kale shakhsiyaadka ka soo baxsanaya furimaha hore ee dagaalka lagula jiro TPLF dhinaca kale la doonayo in lagu badbaadiyo dowladda deegaanka Amxaarada xilli TPLF-na ay ku soo siqayso magaalada Gondar waxayna arrintani keeni doontaa in khalkhal iyo sidoo kale kala yaac ay ku abuurto ciidamada Liyu Booliska Amxaarada iyo maleeshiyaadka Fano arrintan ayaana ku soo aadaysa xilli TPLF dhinaceeda maalmihii u dambeeyay ay dhambaal u soo diraysay ciidamada Liyu Booliska Amxaarada iyo maleeshiyaadka Fano ayna ku sheegtay in shacabka Tigreega iyo Amxaarada aysan jirin colaad iyo sabab xilligan la iskugu xuuqiyo dhinaca kalena loo baahan yahay in bataatanba ay joojiyaan dagaalka ay kula jiraan iyaguna dhinacooda ay diyaar u yihiin inay soo dhoweyn iyo walaaltinimo u sameeyaan dhinaca kalena ciidamada dowladda federaalka Itoobiya Federal Booliska iyo hay'adaha ammaanka dalka Itoobiya ayaa maanta soo saaray war-saxaafadeed ay ku beeninayaan warkii ka soo baxay hay'adaha qaramada midoobay kaas oo salka ku hayay in ciidamada dalkaasi ay xasuuq ba'an iyo sidoo kale tacaddi ka dhan ah bini'aadantinimada ka geysteen gobolka Tigreega waxayna sheegeen in hay'adaha qaramada midoobay waaxda baadhistu warbixintan ay soo saartay ay bataatanba la safatay dhinaca TPLF dhinaca kalena ay ka gaabsadeen inay soo saaraan xaqiiqooyinka rasmiga ah iyo xasuuqyada TPLF ay geysatay hay'adaha ammaanka dowladda federaalka Itoobiya ayaa maanta soo bandhigay qabuuro iyo sidoo kale sawirada kumanaan ka tirsan dad shacab ah oo ay sheegeen in lagu xasuuqay deegaanka Canfarta iyo Amxaarada waxay intaasi ku dareen in hay'adahani aysan tagin bataatanba goobihii ay ka dhaceen tacadiyada balse dhinaca kale ay eed kaliya u soo jeediyeen dowladda federaalka Itoobiya iyagoo sheegay in eedani ay tahay midii horeyba looga filahayay in hay'adaha qaramada midoobay dowladda Mareykanka midowga Yurub iyo sidoo kale koox kastoo isku daydo inay baadhitaan ka samayso gudaha dalka Itoobiya ay soo bandhigto waxay sheegeen inaan lagu kalsoonaan karin bataatanba warbixintan ka soo baxday hay'adahan dhinaca kalena loo baahan yahay in la sameeyo warbixin madax bannaan iyagoo sheegay in dhinaca TPLF
aan bataatanba lagu eedaynin wax dembi dagaala, dhinaca kalena aan la soo saarin wax xaqiiqa oo ku saabsan goobihii ay tacadiga ka geysteen. hay-adaha qaramada midoobay waaxda baadhista oo shalay soo saaray war-saxaafadeed ayaa sheegay in ciidamada militariga Itoobiya, kuwa liyu booliska amxaarada, maleeshiyaadka faano, ciidamada liyu booliska canfarta iyo sidoo kale ciidanka dalka Eritrea inay xasuuq ba'an ka geysteen deegaanada canfarta, amxaarada iyo guud ahaanba gobolka Tigreega. xasuuqyada ay geysteen ayaa la sheegay inay ka dhaceen magaalooyinka Aksum, Adigreet, magaalada Madarkay iyo sidoo kale magaalada Maykadra, waxaana la sheegay in webiga Takase lagu guray kumanaan shacab ah oo aagaasi ku sugnaa, dhinaca kalena ay xasuuq u geysteen ciidamada dalka Itoobiya. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in hay-adaha ammaanka Itoobiya ay kufsi aad u xoogan u geysteen gabdhaha yaryar iyo sidoo kale haweenka waayeelka ah xilliga ay gudaha u galeen gobolka Tigreega. ciidamada Eritrea ayaa qayb ka ahaa eedeymahan loo soo jeediyey iyo xasuuqyada ka dhacay gobolka Tigreega. warbixintan ayay bataatanba dowladda Itoobiya ganafka u daruurtay, waxayna sheegtay in ay tahay mid been ku tiri kuteen iyo waxba kama jiraan, dhinaca kalena aan lagu kalsoonaan karin. daawadayaal, inta ayaan kusoo koobi doonaa warbixintii dalka Itoobiya iyo xaaladihii ugu dambeeyey. waxaan idinku soo gudbin doonaa warbixinadeena dambe hadduu eebba yidhaahdo. tan intaan kulmin doon barnaamij kala meen waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.